markaan ogaanay inaanay ciyaalkan safaara aanay dhalin lala soo xaday waxaan ayaan caruurtaasi oo iswada leeg oo aan qofna qof la walaalahayn uu nin kaliya lix caruureeyay aniga wata caruurtaasi waa caruur waxay noo leeg tahay inay tahay caruur soo xaday السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام الله قاليقا ميل والبودنودي كجوكتان كسولي بهذا جانال كيغا halkaad igala socotaan waa Fihimo Show sida aad muuqaalkan gudihiisa ku arki kartaan halkaani waxa idin kaga muuqda caruur aad u yar yar oo da'dooda lagu qiyaasay 1 sano jir ilaa 4 sano jir caruurtaani waa caruur Soomaaliyeed waxa soo xaday nin iyo naag u sii waday ama u sii kaxeynaya wadanka Itoobiya ninkan iyo naagtan oo Oromo ah oo magacyadooda lagu kala sheegay Maxamed Cismaan iyo sidoo kale Faadimo Ismaaciil ayaa caruurtaani waxa ay ka soo xadeen wadanka Yemen sidoo kale waxa xusid mudan caruurta afar kamid ah in ay warqad go home uga soo sameeyeen safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay wadanka Yemen sagaal caruur ah oo ka ugu weyn yahay 4 jir ayaa saaka markii uu soo xidhay markabka Nova 2 dekada magaalada Berbera ayaa laanta immigrationka faraceeda dekada waxa ay markabka ugu tageen nin iyo gabadh dhalashadooda Oromo ka soo jeeto oo wata sagaalkan caruur ah oo ka ugu yar yahay 1 sano caruurtan ayaa isugu jira 5 wiil iyo 4 gabdhood ninkan ayaa waxa haddaba ka hadlay taliyaha laanta immigrationka faraca dekada Berbera Umar Ali Bidaar iyo taliyaha rugta booliiska ee dekada Maxamed Daar waxaan fuulay markii aan fasaxaynay markii aan fasaxadii galay ayaa waxaan arkaynay iyaga badan wata iyo gabadh ka socota marka aniga waxaan weydiinay su'aal iyaga hooyadooda meelay wuxuu nagu yiri waxay gashay Sacuudiga markii dabaan xawiyay waraysi badan sameeyay waxaan ogaanay inaanu dhalin iyaga waxay ka soo watay lix يعني ninkan magaciisa waxa weeye Maxamed Cismaan Cabdillah waa nin Oromo gabadha la socotay waxay Faadimo Ismaaciil Cabdi waa nin Oromo waqti waxaan dhalay mid caruurta magaceedu yahay Sabriya Ahmed Faarax iyo laba ciyaar kale wadaayin oo magaceedu Naadiyo Saamiyo iyo Naadiyo Maxamed Cali markaan ogaanay inaanay ciyaalkan safaara aanay dhalin lala soo xaday waxaan u yeernay ماريا كده قالوا سلام توصل شيء سلام توصل لها ماريا كده ساسان كوريش عيدك بوليسك caruurtu waxa weeye wax lagu qabtay markabka noqoto ayaa laga soo rugay markii ama gareerku ka soo rugeen laanta socdaalku ayaan caruurtaasi oo iswada leeg oo aan qofna qof la walaalahayn uu nin kaliya lix caruureeyay aniga wata ayaan garanay marka ninka wata waxa la yiraahdaa Maxamed Ismaaciil Cabdillah gabadha la socotay la saddex wadatay waxa la yiraahdaa Faadimo Ismaaciil Cabdi markabka waxa la yiraahdaa Nova 2 waxaanu ka keenay bay yiraahdeen Yemen marka waxaanu u soconaa bay yiraahdeen Itoobiya dadkaasi ma aha dadkii caruurta dhalay baaristoodina way socotaa caruurtaasina waxay u eg tahay caruur aan ahayn dadkii dhalay inay wataan ma wataan caruurtaasi waa caruur waxay noo leeg tahay inay tahay caruur soo xaday ama laga gacansanayaba walina haddaba waxa socda baaritaankii sida ay sheegeen labadaasi taliye waxa iyaguna dhinacooda goobjoog ka ahaa barsaabka Saaxil Maxamuud Ali Saleebaan iyo Mariyaha dekada Berbera Engineer Ali Umar Maxamed Ali Xorxor oo isla saaka caruurtaasi u kaxeeyay guriga madaxtooyada ee magaalada Berbera halkaasi oo la dejiyay guri AC ama qaboojiye leh oo loo qabtayna 3 dumar oo caruurtaasi haynaya waxa kale oo mas'uuliyiintani gobolka Saaxil ay sheegeen in ay arinkan aad uga argagaxeen labadan shakhsi ee Oromada ah ee ku dhiiraday in ay caruurtan aanay dhalin ka soo kaxaystaan dalkaasi Yemen qof ay Oromada ahi waxa ay ku wadeen dalkaasi Itoobiya caruurtan ayaa 6 kamid ah waxa ay u soo sameeyeen go home warqadaasi oo ka soo baxday safaaradda dalkaasi Soomaaliya oo ku leeyahay magaalada Sanaa ee dalkaasi Yemen sida aad wada maqlaysaan caruurtu waxa loo maleynayaa caruur la soo kala iibsaday
oo markaasi ninka iyo naagta in ay yihiin tuugo markaas caruurta aanan dhalanin ayaa la xaqiijiyey. Markii hore ninka oo 6 caruura soo kaxaysta ama soo xaday waxa uu sheegay in hooyadood oo u tahriibta Sacuudiga in markaasi uu rabo inuu u geeyo, laakiin waxaa la ogaaday baaritaan dheer kadib in ay u socdeen wadanka Itoobiya, sidoo kaleetana ay Yemen ka soo xadeen. caruurta qaar ka mid ahna safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay Yemen ee Sanca goohom looga soo sameeyey. Marka dhibaatooyinka aad bay u farabadan yihiin. caruurtu hala ilaalsado, hooyooyinka iyo waalidiinta oo idil caruurtooda markasta ha ka digtoonaadaan oo markasta ha ka taxadiraano. Hadda sida aad wada arkaysaan caruurtaani aad ayay u yaryar yihiin, da'doodu 1 sano jir ilaa waxay u dhaxaysaa 4 sano jir, waana caruurta aad wada arkaysaan ee 9ka ah. marka caruurtii aad u yaryar, hadal aanan garanaynin, halka laga soo kaxaystay iyo meesha markaasi laga keenay aanan garanaynin, waxay u fududeysay ninkan iyo naagtan tuugada ah inay caruurta iska soo kaxaystaan oo ma hadli karaan. ayagii oo kala hadlay ayaa shaki fara badan dhalisay. kadibna baaritaan la sameeyey ayaa lagu ogaaday caruurtu inayna walaalo ahaynin oo ay isla dhalanin, da ahaantooda xitaa mataana aysan noqon karinin, caruurtu aad u yaryar darteed. marka waalidiintu ha taxadiraano. runtii aad baa u mahadsantihiin, waa idin mahadcelinaya asxaabta. mashquul dheer kadib alxamdulilah hadda waa soo noqday. muuqaalka noo sii sheergaree, fiideoga laag noo saara. sidoo kale haddaad hore noola joogto waxaan ku leeyahay nala joog, haddaa cusubtaa soo dhawow. sidaas iyo waxaa idinkaga tagayaa muuqaalka xigo intaan ku kulmayno. nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.